in ay bilaabayaan dagaal Kenya looga difaacayo dhulka ay ku xadgudbayso Gedo kamid ah. Gudoomiye ku-xigeenka ayaa tilmaamay in ciidanka Soomaaliyeed ee ku sugan degmooyinka Gedo ay amreen in la difaaco dhulka lana garab istaago shacabka kabiyadiidsan in ay Kenya darbiga ka dhisato gudaha dalkeena iyadoo ku sheegaysa inay tahay xuduudda labada dal. Amar waxaan ku bixinay ciidanka baardheer jooga boor uga garbaaray iyo looq dhamaan ee ciidankaas ay ka qayb galaan meesha dagaalka uu ka socdo oo Kenya ay ku soo xadgudubtay laga bilaabo bari iyo bari dambaday dawladda ciidan jooga ka sugan dawladda jawaab laga waayo waxa laga go'an inaan aadna difaac asaga oo la dirana Kenya meesha shabaab aan la direen waxa la direen laga bilaabo saacadan Kenya waa dhaqdhaqaaqoodii heegankooda uu diyaarsan laakiin dawladda Soomaaliya jawaab ka sugayna oo waqti u diraysa meesha maamulka go'aankaas uu qaato uu baxaya ciidamadiisa dhammaan waxay galayaan dhulka dowladda mas'uulka kale shacabkooda waxa gudbana yeelanayaan waxaan go'aan ku qaadan inaan galno iskana dhicina Kenya cid ka tabarhan ma jirta al-shabaab oo wiilal yar Afrika baabuurta ka soo qaata dowladda Soomaaliya ciidankeeda oo gobolka ku sugan dhamaantii iyo shacabkii oo hubaysan way joogaan wayna difaacayaan Kenya meesha ay leedahay la qabsan hadii la halka noqdo. Umar Nuur Xaaji gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in aysan kala joogsi lahayn falka ay Kenya darbiga kaga dhisayso gudaha degmada balad xawo iyo xadgudubyada kale ee barbar socda dhismaha darbiga. Baaqna waxa uu shacabka Soomaaliyeed ugu diray meel kasta oo ay joogaan in ay ka qayb qaataan difaaca dhulkeena. Uu soodaa galabta u dambeysay gabar baa ku dhimatay gurigeedii oo filaha wuxuu ku soo helay xabadkii gurigeedii ku dagaalantay way dhimatay Kenya dishay gabadha iyada lix qof oo dhaawac ahna way yeelaan laga bilaabo saacadan indhaha kama qabsanayno dawladna sugumayna waan galeynaa meesha ayada hadii la halka noqdo afka gobolka afka dadka shacabka ku hadlayna insha Allah wixii ka imaado adaa waxaan meesha Kenya keentay dad Soomaaliya oo yeeli karta ma jirto dhulkaada hal qaata cid kasta oo Soomaaliya way u taagan tahay Jubbaland way u taagan tahay dhulkeeda difaaca dawladda Soomaaliya ayada laga rabaa in dhulkeeda difaaca insha Allah waan isku raacnaa waan galeynaa meesha hadii Kenya ayada ay dagaal diyaar u tahay anaga diyaar baan dhamaan shacabka ciidan buu diyaarsan yihiin jihadka uu maxaan ku radaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu sheegay in meesha amal uu ka furan yahay sababta qofka dhulkaada ku soo xadgudbo inaad ku jihaato waxa weeye waa sharci dhulkanaga waan ku jihaadaynaa waan ku filan Kenya gobolka Gedo inta degan ku filan Soomaaliya dhulkayda iskale dhamaan cid gaar u leh ma jirta shakhsi male qof gaar oo sheegan kara ma jirta dadka Soomaaliya taageero lagu baahan yahay hadii si loo fariisan maayo Kenya wala la dirayaa dhulka ay leedahay laga qabsan hadii la halka noqdo. Waxay ahayd tallaabo la sugayay in maamulka gobolka Gedo ku dhawaaqi doonaan difaaca dhulka lagu xadgudbayo waxaase jirtay in dad badan oo damqanaya ay wali tabayaan kaalinta dawladda dhexe ee Soomaaliya.